kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkan waa channelka xaqiijinta wararka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qarxi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan iskayska Egas Control F-gooye oo ay ku dhinteen in ka badan 130 qof oo ay ku jireen arday u socdeen jaamacadda Banaadir kuwaasoo gabi ahaanba gaariga ay saarnayeen uu basbeelay ardaydan oo hiigsanay nolol wanaagsan iyo mustaqbal balse dhagar qabayaashu ay la eegteen qaraxa ardayda tirada rasmiga ah ee ku dhimatay qaraxan weli lama shaacin balse sawirada la soo dhigay baraha bulshadu ay ku wada kulmaan ayaa ah kuwa argagax galiyay dhammaan dadkii arkay Caaliya Xayle iyo Idil Xayle waa laba gabdhood oo walaal ah waxay wada saarnaayeen baska jaamacadda Banaadir ee ardayda wuxuuna gaarigu ku burburay oo ku basbeelay qaraxii saaki ka dhacay iskayska Egas Control ee magaalada Muqdisho Caaliya Xayle waxay ku dhimatay markii isbitaalka la geeyay iyadoo dhaawaceedu halis yahay Idil qaraxa way ka badbaaday oo waa dhaawac musiibadan kuma ka qoyska faamilka Caaliya iyo Idil waxay wada taabatay xanuunka geerida iyo dhaawaca labadan hablood dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo aad ugu wadanahay musiibada ku habsatay qoyskan rabbi waxaan uga baryaynaa Caaliya inuu jannadii Firdawsa ka waraabsho sidoo kale Idil Allah caafiyo oo qalbiga ha u qaboojiyo dhammaan ummadii ku waxyeelowday Allah ha u gargaaro intii ku dhimatay qaraxan musiibada ahaa alla jannadii Firdawsa ka wada waraabsho dhibta iyo qaraxyada haligii caasimada Soomaaliya Allah ka dulqaado maalin waliba dhawaaq naxdin leh baan maqalna allow nabada sareeda leh ayaanu ka barinay